إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaan shuhadadii ku baxday gacanta kuwa aan ugu yeeri karno inay yihiin abnaa'u jahannam ama ciyaalkii naarta kuwa ay yihiin. waxaa kaloo oon runtii ilaahay subxaanaه wa tacaala u weydiinaynaa inuu u boogadhayo inta ku dhaawacantay dadka soomaaliyeed, inta ku dhimatay weerarkii ay soo qaadeen abnaa'u jahannam waa shuhado ilaahay idankiis. waxaana ilaahay u baryaynaa inuu ilaahay u aqbalo shahaadadooda. qoysaskii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeenna waxaan leenahay samir iyo iimaan allah idinka siiyo. waxaan idinla wadaagaynaa xanuunka, waxaan idinla wadaagaynaa murugada iyo tiiraanyada. kuwa dhaawacmayna ilaahay idankiis waxay u tahay dembi dhaaf. waxaan ilaahay uga baryaynaa caafimaad deg dega inuu ilaahay siiyo. waxaa xaqiiqo ah dadka soomaaliyeed inay ogaadaan ninkii cumar bin اlkhadaab dilay radia allahu tacaala canhu ee cuثmaan binu cafaan amiir اlmu'miniin dii nuurayn dilay radia allahu tacaala canhumaa labadaba inuusan ayaga daynayn. waxaa u yaallaayey waa laba khiyaar midun inaan dooranno, annaga iyo shabaab iyo magaca saxda ay leeyihiin oo ah inay yihiin ciyaalkii naarta. waxaan kala dooranaynaa inay iyagu noolaadaan iyo inaan inagu noolaano, laakiin islama noolaan karno. waxaan rajaynayaa sida shacabka soomaaliyeed go-aanka ugu gaaray dowladdooduna ay ku hogaaminayso inay isdhaafiyaan, inaan isu dhaafin doono, dulqaadkiina inuu dhammaaday ayaan rajaynayaa. waxaan rabaa inaan halkan ammaan iyo bogaadin uga soo jeediyo mujaahidiinta ciidamadeenna sharafta leh ee mujaahidiinta ah ee dhiiggooda u shubay, ee naftooda u huray inay badbaadiyaan carruurtooda, walaalahood, hooyooyinkood iyo aabbayaalkood. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin, waxaad tihiin mujaahidiin dhaba. waxaana rabaa inaad sidaa niyootaan, ilaahayna jihaadkiina ha idinka aqbalo. intiinii ku shahiidayna waa shuhado, inta ku dhaawacantayna ayaguna waajib ay gudanayeen oo ay dadkooda ay ka difaacayeen waraabayaashaas abnaa'u jahannamada ah ayay ku dhaawacmeen. waxaan rajaynayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala ayagana u boogadhayo. waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo gebagabeeyo. haddii uu ujeedku yahay in dadka la niyad jabiyo, haddii uu ujeedku yahay in shacabka soomaaliyeed ee goostay inuu heeryada abnaa'u jahannam ama ciyaalka naarta ay iska dulqaadaan in la joojiyo oo la istaajiyo, taasi ma soconayso. soomaali go-aan bay gaadhay. waxay ka socotaa heeryadooda in la iska dulqaado galmudug, waxay ka socotaa hirshabeelle iyo meelo kale oo dalka ka mid a. waxayna si dhab a uga bilaaban doontaa meelo badan oo kale, waana la iska xoraynayaa ilaahay idankiis. mar alla markii ay xukuumadda u soo jeesatay in ay gargaar u fidiso dadka soomaaliyeed ee abaaraha la daalaadhacaya, markii ay xukuumadda soomaaliyeed u soo jeesatay in ay gaarsiiso biyo iyo dawooyin iyo gargaarka kale ay u baahan yihiin, ayaa waxay go-aan ku gaareen ayaguna inay ku mashquuliyaan in ay dadkii la badbaadinayay inay ayaga laayaan. marka waa gacan wax badbaadinaysa iyo gacan wax dilaysa. keebaa jihaad ah? waxaan rabaa inaan halkan ka sheego
dowladda Soomaaliyeed xukuumadda Soomaaliyeed waxaa saaran mas'uuliyad ayadoo gudanaysa mas'uuliyadaas dadkeeda ka saaran waxaan booqday isbitaalada waxaanan amray in la qaado oo dibadda lagu soo daweeyo dadka dhaawaca halista qaba dhaawacyada culculus qaba ma aha kaliya kuwii ku dhaawacmay qaraxii jumcadii dhacay kuwa kale dad Soomaaliyeed oo kale oo caruur ku jirto oo ay noo sheegeen dhakhaatiirtu inaan waxba gudaha looga qaban karin ayagana waa ku darnay waxaana sida ugu dhaqsaha badan haddii Ilaahay yiraahdo u hawlgalaynaa caawa laga bilaabo sidii dadkaas dibadda loogu qaadi lahaa ee loogu soo daweyn lahaa haddii Ilaahay yiraahdo oo waajibka dawladda waana ku dhaqaaqnay insha Allah waana ka shaqeynaynaa ugu dambeystii waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan u midoobaan cadawga sida ay soo celin lahaayeen u midoobaan sida ay isu xoreyn lahaayeen u midoobaan sidii aysan sida ay hadda sameeyeen aysan mar dambe u dhici lahayn waxaan rabaa oo kale inaan halkan dadka Soomaaliyeed uga sheego una ballan qaado in ay dawladdu ay isla xisaabtamayso mas'uuliyadda inay qaadayso wixii dhacay mas'uuliyaddeeda isla markaana lala xisaabtami doono cid kasta oo u xil saarayd arrintaas ama khidmadaas ama shaqadaas dalka inay u hayso lama aqbali karo wixii dhacay inuu mar dambe dhaco lama aqbali karo in qof shaqo loo diray gabay uu sababo in wixii dhacay uu dhaco qaali bay nagu yihiin dadka Soomaaliyeed waxaana waajib naga saaran yahay inaan ilaalino naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda inaan ilaalino ay waajib naga saaran yahay waxaana gudan doonaa Ilaahay idinkiis inta tabara meesha ugu dambaysa ayaana gaarsiin doonaa cid kasta oo gudan weyda waajibkeeda cid kasta oo gaabis ka yimid cid kasta oo xad gudub ka yimid intaba waa lala xisaabtami doonaa waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiis inayna mar dambe nagu soo noqonin mar kale waan u tacsiyanayaa dadka agoontoobay kuwa rajoobay iyo kuwa runtii ku adimo iyo luga beelay intaba waan u tacsiyanayaa waxaana idin leeyahay waa niyadiina insha Allah khayr u sheega kii dhintayna waa shahiid midka dhaawacmayna waxaa insha Allah aan rajaynayna Ilaahay dambigiisa ku dhaafo aad iyo aad u mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته